السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جالك مالمها وحان إذا لم ذلقنا قصة آدو عجيبة إسلامر كان أي كسو قامتها قصل قصة أيا واحد أحمرتي نيك لو مغعابو جحا إينين مسافرة جحا سيدين أقنا هبا وانين آدو عجيبة وحن ليه مواقف بضن سو كالتوحو هانين نلشي سدن ايه نول عجيبة وهنا شخصيات dadka aad u la yaabeen hase yeeshee dadku waxay isweydiiyaan juxa wuxuu ahaa nin aqli badan mase wuxuu ahaa nin dabaala wuxuu doonama ha noqdee waxaa la og yahay in juxa uu ahaa nin awood u leh dadka inuu mar waliba ku soo dabaalo farxad noloshooda wax ka bedelo qisooyinkiisa waxaa ka mid ah qisadan dhaxmartay isaga iyo nin musaafira habeenada ka mid ah xilli waqti dambe ah ayaa nin musaafira oo faqiira ayaa wuxuu dhex socday magaalada dhexdeeda markaasuu wuxuu go'aansaday ninkan inuu tago guriga juxa isla markaana uu weydiisto musaacado ama kaalmo ninkii wuxuu garaacay albaabkii juxa markaas juxa wuxuu soo istaagay gurigiisa meesha sare ayuu soo istaagay ama dabaqa sare markaasuu ninkii arkay meesha taagan wuxuu ku yiri maxaad doonaysaa ninkii ayaa u jawaabay juxa ku yiri niyahow arrin muhiim ah ayaan ka leeyahay waxaan doonayaa inaan kula sheekaysto sida darteed ii soo deg oo ii imow juxa dabaqii sare ayuu ka soo degay markaasuu ninkii u soo degtay albaabka furay wuxuu weydiiyey arrinta uu ka leeyahay iyo sababta saacadda ninkani wado ninkii faqiirka ayaa juxa ku yiri nin waxaan ka doonayaa musaacado maadaama Allah xoolo ku siiyay xoolaha Ilaahay ku siiyay wax iga sii waxaan ahay nin musaafira oo gaajeysan waxna u baahan juxa ninkii ay sida u fiiriyay kadib wuxuu ku yiri hagaag dib ma lahan bal wax yar isug wuu baxay juxa guriga galay markaasuu wuxuu fuulay dabaqada sare markii uu dabaqada sare tagay ayuu ninkii uga naaday dabaq korkiisa markaasuu wuxuu ku yiri niyahow bal soo fuul dabaqa oo kor igu imow ninkii uu soo koray dabaqii markii uu yimid oo isleeyahay ninkan waxba ku siin doona ayuu juxa u soo dhawaaday agtiisii markaasuu ninkii wuxuu ku yiri waxa doonaysa Ilaahay ku sahlo aniga waxba ku ma heli karo ninkii aad ayuu u yaabay markaasuu wuxuu ku yiri niyahow maadaama aad waxna isiinaynin maxaad ii dalisay oo ii soo saartay dabaqan kore juxa ayaa u jawaabay ninkii ku yiri maadaama aad ogtahay inaad wax weydiisanayso maxaad aniga dabaqa saaran ii weydiisaweysay oo ii qasabtay inaan ku soo dago dhulkan aan kugu imaado juxa mar waliba wuxuu ahaa nin ka shaqeeya maslaxadiisa oo mar waliba doonayo inuu tiisa gargaarsado qisadani halka ayay ku eg tahay haddaba qisadan waxaan ka faa'iideynaa ma aha nolosha mar waliba inaad maslaxadaada kaliya ka fikirto balse waxaa haboon mararka qaar inaad dadka kala shaqeyso maslaxadooda isla markaana aad ka hormariso midaada gaarka ah tan guud ee dadka kala dhaxayso waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha fadlan subscribe dheh gamaanka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono mahadsanid